السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. casharkan waxaa laga soo diyaariyey laba qof oo ku wada sheekaysta email. Marka qofba waxaa ka warramayaa saaxiibkiis, noloshiisa, familigiisa, waxyaabaha uu jecel yahay. Dhammaan ayaa laga wareysanaya. Haddaba adiga ma isku dayi kartaa casharkan aad qorato oo adigna sidaan oo kale saaxiibka uga hadasho. My email is name Melissa. Email friend. waa saaxiib iska caadiya qof aad qadka saaxiib ku tihiin. My email's name is Melissa. Lisa for short. Lisa waa loo soo gaabiyaa. Qofka aan qadka saaxiib ku nahay Melissa la yidhaha. Lisa for short. Lisana waa loo soo gaabiyaa. She's from Turkey. Waddanka Turkiga ayay kasoo jeedaa. She's very funny. waa gabar aad u shactiro badan. Funny ah. I like her emails. Emailadeeda waan jecelahay. They are always very interesting. Markasta waa kuwa aad u xiiso badan. Lisa is 22. Lisa waxay jirtaa 22 sano. And she is a receptionist. waana qof reception ah oo waxay soo dhaweyn ama qaabilaad u sameysaa Hotel Amira ay reception ka tahay in Istanbul oo Istanbul ku yaala. She loves her job. shaqadeeda way jeceshahay. And she likes waxay jeceshahay sidoo kale meeting interesting people from around the world. waxay inay la kulanto dadka xiisaha leh oo ka kala yimid hareeraha dunida. Around the world hareeraha dunida. B qaybtan waxaa looga sheekeynayaa wiil ay xiriir la leedahay ayaa looga sheekeynayaa. She has a great boyfriend from Cyprus. wiil oo waxay leedahay aad u fiican oo muxuu ahaa Cyprus ka yimid, Qubrus ka yimid ayay haysataa. ayay leedahay and he has a job at the hotel too. sidoo kale asigana hotelka ayuu shaqo ka hayaa. His name is Mamed ayaa la yidhaahdaa. And he is a waiter in the hotel bar. Waiter ayuu ka yahay qaybta hotelka cabitaanada lagu sameeyo ee baarka ah ayuu waiter ka yahay. meeshan haddii aan nodgaray boyfriend dadka islaamka ama isticmaalaan anshaxa islaamka kasoo horjeeda waaye. marka saas way ogow qof islaam ma dhihi karo boyfriend aan leeyahay ama girlfriend aan leeyahay ma dhihi karo. waa inaad intaasna waxay u baahan tahay censorship in loo sameeyo waxa maadaama luuqad baranay dad kale culture-kooda baranay qofka wax soo gudbinaya marka waa inuu mas'uuliyad iska saaro oo nodgareeyo oo sheego oo xusuusiyo inaad barato culture-kooda luuqadooda wax ceeba ma ahan. laakiin adoo ogeynin haddii aad iska isticmaasho dhow waxaa kugu dhacaya xogaa wax yar oo dadka inay kula yara yaabaan ayaa ama aadba ku yara dambaawdaa laga yaabaa. okay marka boyfriend iyo girlfriend qolyaha gaalada isticmaalo ilaa heer ayaa la iska dhalo ayuu gaaraa. waayo qaybta C maxaan leenahay meeshay ka timid iyo waalidkeed iyo waxyaabahaas ayaa lagaga hadlayaa. Lisa is from Adana. Lisa waxay kasoo jeedaa Adana in the south of Turkey oo koonfurta Turkiga. Her parents waalidkeed have a house guri ayuu leeyahay near the city center fiyaalaha magaalada ama bartamaha magaalada. Her father is Turkish. aabaheed waa aaba Turkish. He works wuxuu ka shaqeeyaa at one of Adana's airports. mid ka mid ah eelaboorada Adana. Her mother is English. hooyadeeda waa hooyo English ah. And she's a businesswoman. waana gabar ganacsata ah oo islaan ganacsata ah weeye hooyadeed. qaybtan waxaan uga hadlaynaa walaalaheed cidda la dhalato. She has two brothers. laba walaala ayay leedahay. Their names magacyadooda are Arif and Basir. magacyadoodu waa Arif iyo Basir. Arif is 17. Arif waxa weeye 17 jir. And Basir is 14. Basirna 14 jir waaye. They are both still at school. labadoodu weli iskuulka ayay dhigtaan. waxyaabahay jeceshaan uga hadlaynaa. And Lisa has a lot of interests. Lisa waxaa jira waxyaabo badan ay xiiseyso.
but her favorite hobby hobbiga ay si gooniya uga hesho waxay samaysaa hobbigeeda ah si gooniya uga hesho waa dancing qoobka cayaarka wey she loves waxay jeceshahay traditional Turkish dancing qoobka cayaarka Turkiga ah ayay jeceshahay and dances way qoobka cayaartaa in a lot of competitions tartana fara badan ay ka qayb gashaa ay ka qoobka cayaartaa and she also likes tennis sidoo kale waxay jeceshahay tennis she and her brother Arif ayada iyo walaalkeed Arif are big fans of Marcel Ilhan waa taageerayaal waaweyn ee Marcel Ilhan I learn waxaan ka bartay ayuu leeyahay qofkan ka warramaya saaxiib qofka saaxiibka leeyahay qadka saaxiibku leeyahay email friendka a lot about Turkey in badan oo Turkiga ku saabsan from Lisa ka bartay and it is really interesting waana kuwa ku xiiso gelinaya we have fun emailing waxaan sameynaa fun emailing emailka ayaan isaga madadaalanaa and texting iyo fariin inaan isu qorno okay thank 4.12 My e-pal Melissa. My e-pal's name is Melissa. Lisa for short. And she's from Turkey. She's very funny and I like her emails. They're always very interesting. Lisa is 22 and she's a receptionist at the Hotel Amira in Istanbul. She loves her job. She likes meeting interesting people from around the world. She has a great boyfriend from Cyprus. He has a job at the hotel too. His name is Mehmet, and he's a waiter in the hotel bar. Lisa is from Adana, in the south of Turkey. Her parents have a house near the city centre. Her father is Turkish, and he works at one of Adana's airports. Her mother is English and is a businesswoman. She has 2 brothers. Their names are Arif and Basir. Arif is 17 and Basir is 14. They're both still at school. Lisa has a lot of interests, but her favourite hobby is dancing. She loves traditional Turkish dancing and dances in a lot of competitions. She also likes tennis. She and her brother, Arif, are big fans of Marcel Ilhan. I learn a lot about Turkey from Lisa, and it's really interesting. We have fun emailing and texting. you very much